idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka bbcsomali.com. door wanaagsan dhageystayaal waa khamiis 6 bisha August saacada Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimada waxaa kamid ah shacabka Beirut oo si cara leh uga hadlay qaraxii ka dhacay magaalada Beirut talaadadii iyagoo dawladdu ku eedeeyay maamul xumo. tigniintan soo jeedinayna waxay tahay in laga yaabo kulays inuu ka dhasho dhinaca koobabka lahaada leh oo aan looga baahan xagaaga kaasoo dhalin kara fatahaado. wasaaradda ka hortagga masiibooyinka iyo gurmadka degdega ee dowladda federaalka Soomaaliya oo digniin u jeedisay inay fatahaado dhici karaan. golaha arrimaha sare ee islaamka ee deegaanka Soomaaliya ee dalka Itoobiya oo garaasho ka bixiyay shacabka cabanaya lacaga ay xajka ku aadi lahaayeen oo ka baaqday in dadku xaq waxay u leeyihiin oo sharcigu siinaya inay maxkamadda ka dacwoodaan intay qareenna qabsadaan ay maxkamad la saaro. ana saasan soo dhaweynaya saasaan ku tala bixinaya sababta weeye waa wax shuruucda ay siinayso weeye. qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenani duhurnimo waxaa si wada jira u soo saaray Xasan Cali Geelle iyo Ciise Xaaji Cabdulle balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka idaacadeena duhurnimo iyo Faarax Lamaane. mahadsanid Cadow. ayadoo Lubnaan ay 3 maalmood oo baroordiiq u qabanayso dadkii dhintay ayaa wasiirka dhaqaalaha waxa codsi gargaar dhaqaale oo caalami ah uu u diray adduunyada si wax looga qabto burburkii ka dhashay qaraxii Beirut ka dhacay talaadadii. Raul Nehme waxa uu sheegay in dawladda Lubnaan iyo banka dhexe oo kaliya ay leeyihiin awood xadidan oo ay kula tacaali karaan burburkii ka dhashay qaraxa kaasoo dilay ugu yaraan 137 qof. afayeen oo hadlay hay'adda Save the Children oo la yiraahdo Ahmed Bayram ayaa BBC-da u sheegay in ayadoo ay socdaan dadaaladii samata bixintu misna ay dad badan weli ka naxsan yihiin waxay dhacay. Rescuers are trying to dig out the dead bodies. kooxaha gurmadka waxay isku dayayaan in ay soo saaraan meydadka. waxaa mucjiso ahayd xalay markii kooxaha gurmadka ay dhismooyinka dumay hoostiisa ka soo saareen gabar yar oo nool. carruurta iyo qoysaska way argagaxsan yihiin. haatan waxaa hoy la'aan ah ku dhawaad 300,000 oo qof. waxaan dadka ka codsanaynaa in ay guryahooda iyo albaabada u furaan qoysaskan arrintan ay saamaysay. sidoo kale hoteelada waxaan ka codsanaynaa inay albaabadooda furaan oo ay soo dhaweeyaan dadkan. waa arrin argagax ah waxayna qaadan doontaa muddo in arrintan laga soo kabsado. For hotels and motels to open their doors, it's a shock and it's a long way to recovery. dacwadoogayaasha Jarmalka ayaa eedeymo waxa ay ku soo oogeen 3 qof oo hore madax uga ahaa iyo sarkaal sare oo howlgab ka noqday shirkadda gawaarida sameysay la yiraahdo Audi ayadoo la xiriirinayo inay ka been sheegeen naqaska ay sii daayaan gawaaridooda naftada ku shaqeysa. fadeexada oo soo shacbaxday 2015 ayaa waxa ku lug leh barnaamijyada kombiyuutarka ee loogu talagalay inay yareeyaan naqaska baxaya xilliga tijaabada. bangiga England ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha UK uusan isdhimi doonin sidii markii hore la saadaalinayay hase yeeshee waxa uu sheegay in wax soo saarku uusan ku laaban doonin halkii uu joogay ka hor intii aanu dilaacin cudurka corona ilaa iyo laga gaarayo dhamaadka sanadka soo socda. Facebook ayaa waxa uu saaray video la soo galiyay barta madaxweyne Trump ayagoo sheegay inuu faafinayo warar aan jirin oo ku saabsan xarunka coronavirus. Twitter ayaa waxa ay xayirtay barta ololaha madaxweynaha ilaa iyo inta videoga laga saarayay. videoga waxa ka muuqanayay madaxweynaha oo sheegaya in carruurtu ay yihiin kuwo ku dhow inay ka badqabaan cudurka. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in dacwadoogayaasha Ruushka iyo Ukraine ay kiisas ku soo ogaan in ka badan 33 calooshood u shaqeysta oo Ruush ah oo ku xiran Belarus. Kiev ayaa raggaas waxa ay ku tuhunsan tahay inay ka dhinac dagaalamayeen fallaagada uu Ruushku taageero halka Moscow ay sheegayso inay yihiin qandaraaslayaal gaar ah oo amniga ka shaqeeya kuwaas ku sii jeeday Belarus. naadiga warbaahinta dibadda ee ay leeyihiin suxufiyiinta ee wadanka Hong Kong waa deegaanka Hong Kong ayaa Mareykanka iyo Shiinaha ugu baaqay in ay joojiyaan isticmaalida warbaahinta sida markaasi hub siyaasadeed oo kale.
waxa ay sheegeen in warfidiyeenadu ay la kulmaan in la dahayo viisooyinkooda shaqada ee Hong Kong. maamulka Trump ayaa isna waxa uu xayiray howlaha suxufiyiinta ee Shiinaha. ugu dambeyntiina Thailand ayaa waxa ay qorsheynaysaa in ay dalalka qaar ka samayso goobo dadka musaafurka loogu talagalay oo karantiilka ka caagan ayada oo tirada dadka uu ku dhacayo cudurka corona ee qaaradda Asia ay sare u sii kacayso. tallaabadaas ayaa waxay u badan tahay dhaawac inay u geysanayso dalxiiska wadanka. warkiina waa naga intaa cadow. aad buu u mahadsan yahay Faarax Lamaane oo nala socodsiinay warka idaacadeena Soomaaliya. halka laga imanayna waa BBC. aynu ku horeynay shacabka dalka Beirut ayaa si carar leh dawladda ugu eedeeyay taxadar yarida dawladda in uu ka dhacay qaraxii talaadada gilgilay magaalada Beirut. madaxweyne Michel Aoun ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay 2750 tan oo ah maadada ammonium nitrate taasoo si aan ammaan ahayn loogu kaydiyay maqaasiin dekada ku yaalay muddo 6 sano. shacab badan ayaa hay'adaha dawladda dalkaasi Lebanon ku eedeynaya musuqmaasuq, habacsanaan iyo maamul xumo. xasan cali geelle ayaa wararka BBC amurtaan ka qortay inoo soo akhriya haatan stuudiyo ay ugu soo biiri xasan. cabdiraxmaan dawladda iyo mas'uuliyiinta dadka haya xukunka dalkaasi Lebanon ayaa cambaareen iyo canaan la kulmayo gaar ahaan dadka shacabka oo ka careysan wixii dhacay talaadadii la soo dhaafay oo ahaa qaraxii aad ku weynaa ka dhacay magaalada Beirut. waxa ay lagu eedeynayaa marka mas'uuliyiintan iyo guud ahaan dawladda oo dhan inay ku guuldareystay in ay si meel fiican la dhigo waxyaabaha haata la leeyahay waxa ka dhashay qaraxaasi oo ah maadada la yiraahdo ammonium nitrate oo la sheegay in qaraxani uu ka dhashay kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 137 qof. qiyaastii 5,000 oo qof ayaa dhaawac ah halka tiro kalena la leeyahay ay haatan meel ay jaan iyo cirib dhigeen. 2 usbuuc oo xaalad degdeg ah ayaa dalka la geliyay. shalay oo Arbaca ahayd ayaa dawladdu waxa ay sheegtay in saraakiil ka tirsan kuwa ka howlgala dekada magaalada Beirut xabsi guri la gelinayo inta baaritaanka laga bilaabayo. waxa kaloo jirtay in golaha difaaca qaranka ee dalkaasi Lebanon uu ku adkeysanayo inay waajib tahay in shakhsiyaadkii arinta ku lug lahaa ciqaab la marsiyo. ilaa haatan marka waxa soconaya sidii loo baadigoobi lahaa dadka maqan geeri iyo nololba iyadoo sidoo kale la ururinayo burburkii qashinkii ka dhashay qaraxaasi. waxa jirtay in barasaabka magaalada Beirut Marwan Abuud oo BBC-da la hadlaya waxa uu sheegay in Beirut ay u baahan tahay taageero. Beirut needs food, Beirut needs clothes, houses. Beirut waxay u baahan tahay cunto. Beirut waxay u baahan tahay dhar, guryo iyo agab dib loogu dhiso guryaha burburay. Beirut waxay u baahan tahay in laga dhiso goobo ay ku hoydaan dadka qaxootiga ah iyo dadkeedaba. waa masiibadii ugu weyneed ee soo wajahday reer Lebanon tan iyo sanadkii 1920. That affront Lebanon since 1920. baaqaasi barasaabka Beirut waxa ka soo jawaabay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo noqonaya hogaamiye ugu horeeyay caalamka soo booqda magaaladaasi ay musiibada ka dhacday. markii uu soo gaaray magaaladaasi Beirut ayaa Emmanuel Macron waxa uu sheegay in Lebanon ay u baahan tahay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo caalami ah. J'ai souhaité ensuite voir l'ensemble des forces politiques pour avoir un dialogue de vérité. waxaan la kulmayaa mas'uuliyiinta siyaasadda si aan uga wada hadalno xaaladda dhabta ah ee qaraxa. waxaan ognahay xiisada taagan inay tahay mid weyn, waana mid waajibaad taariikhi ah u leh siyaasiyiinta hadda jooga. waa xaalad jahwareerinaysa siyaasadda, dhaqaalaha iyo qoysaska reer Lebanon ee arrintuna ay saamaysay. waxayna u baahan tahay tallaabooyin degdeg ah. Dont la première victime est le peuple libanais et elle impose des réactions extrêmement rapides. codkaasi wuxuu u dambeeyay madaxweynaha Faransiiska ayuu ahaa xasan geelena. aad buu mahadsan warbixintaasi la socodsiinay. imikana wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa digniin ka bixisay fatahaado ka dhalan kara roobabka xagaaga nidaaya iyo weliba dabaylo dhinaca badda ka iman kara. wasaaraddu waxay sheegtay gaar ahaan deegaanada ay webiyadu maraan amaba ay ka da'ayaan roobabka mahiigaanka ah in ay ka dhalan karaan daadad. haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda Mukhtaar Sheekh Xuseen Jaamac ayaa goor dhaweyd ka wareystay digniinta ay soo jeediyeen waxa ay tahay in laga yaabo culays inuu ka dhasho dhinaca roobabka laxaada leh oo hana looga baran xagaaga kaasoo dhalin kara fatahaado inay ka dhashaan eeriyooyinka deegaanada webiga ku dhow oo ku xeeran gobolka Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan intaba. sidoo kale digniinta ay wasaaradda bixinaysay waxay iyadoo ka hadlaysay in mowjadaha iyo hirarka badda ay xaddigoodii uu sare u kacay iyo cabirkooda sare u kacay taasoo aanan
adag tahay ama ay suurtagal tahay in doomaha ganacsiga yaryarka iyo kuwa kalluumaysiga intaba ay ku socdaan badda ama ay isticmaalaan sidoo kale waxay wasaaraddu ka digtay dabeelaha xoogan oo u wadan doono roobka xagaaga kaasoo la filanayo nuuca soo socdo inay isla socon doonaan roob iyo dabeel xoogan dadku dareemi karaan. mukhtaar digniinta aad soo jeediseen waxaad ku sheegteen 5 ilaa 12 bishan inay dabeelaha ay xooganaan doonaan ayaad sheegteen marka meelaha ay soo gaarayaan ma jiraan ama aad isleedihiin way soo gaari karaan waxay aad ugu xoog badan yihiin dabeelahaas marka la yiraahdo laba eeriyooyinkan oo labada jubba xiriira jubbada hoose iyo jubbada dhexe ilaa cirifka ugu dambeeya oo jamaame iyo guud ahaan shabeellada hoose eeridan baraawe iyo xigto dhulxeebeedka intaba waxaa laga yaabaa roobka soo gaari doono inuu wada doono dabeel xoogan taasoo suurtagal ay noqon karto inay guryaha ku dhalo wixii aan aad u adkayn saameyn ku yeelato marka waxaan malaynayaa xogta guud ahaan ama shirka janaa'id shalay oo wasiirka jeediyey in aad looga wada bogtay hadafka loo jeedinayana waxa weeyaan in dadku intaysan culeyska ama dhibta gaarin ay foojignaan iyo ka digtoonaasho ay helaan sababtaasna waa sababta wasaaradda ay unkuday ama ay u diyaarisay xaruntan qaran ee ka digista halis wadareedka marka deegaanada inta badan dabeesha looga baqayo waa deegaanada dhulxeebeedka oo xeebta ku teedsan halka deegaanada webiga qarkiisa saaran laga baqayo inay fatahaad ku dhacdo muqdisho bishii lasoo dhaafay roobab ayaa ka da'aya marka wax xiriir ah miyay la leeyihiin digniinta aad hadda bixinaysaan dhinaca isbedelada cimilada muqdisho iyaga dabeelaha xoogan aad loogama baqayo iyada fatahaadan oo webiyada keenayeen iyaga looga baqi maayo laakiin fatahaad kale webiyu leedahay muqdisho oo loo yaqaano flash floods waxa weeyaan roobka caadiga biyaha waxaana iyadana u sababayo reerkeeda infrastructureka jidadka iyo laamiyada ayaanan waxayn lahayn meelihii biyaha ku bixin lahaayeen iyo meelihii u gudbi lahaayeen marka dee biyo yar baa ay la kulmaan culeysku imaana wuxuu kale culeysku ku dhici doonaa dadka IDB-yada oo masaakiinta ah oo iyagana teedsan maxaa la dhahaa tradishi ilaa uun abkoy korodor teedsan ayagana kama marnaa doonaan inay biyaha ahmed ku yeeshaan laakiin xoogga muqdisho kuma badno roobka wuxuu uga badnaa doonaa gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo waqooyi galbeed oo dhinaca kale iyadana badda cad saameyn uga soo yeelan doonto kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaraynta gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramay halkan nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba golaha sare arrimaha islaamka ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegay shacabka ka cabanaya inay lacaga ay xajka ku aadi lahaayeen ay ka maqan yihiin cabashadoodu ay sax tahay iyadoo golaha arrimaha islaamkana uu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii cabashada shacabka wax looga qaban lahaa wuxuuna goluhu sheegay shacabka qaarkood lacagahooda in loo soo celiyay qaarna ay ka maqan yihiin balse xaq u leeyihiin cidda ay lacagta ka maqan tahay in ay maxkamad la tiigsadaan cidda ay lacagtooda uga maqan tahay gudoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka Sheekh Axmed Abi ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka igu warramay dadka xujaajta sanadkii hore laba xaala isugu dhacday rafaad badan oo systemkii markaa meesha ka jiray dawladda kala guur ahayd qodobka labaad oo xajkii waayeen ayay ahayd in kasta oo deegaanku oo sanadkii ugu xaj badnaa uu ahaa xilliga iyada ah hadda sanadkii lasoo dhaafay haddana dad 1400 oo ruux ah ayaa xaj waayay markii xajkii waayeen lacagtana waxaa lagu shubay akoon uu iska leeyahay xafiiska golaha arrimaha islaamka ee federaalka ma aynan ku soo dhicin lacagta xafiiska golaha arrimaha islaamka ee deegaanka Soomaalida uu leeyahay federaalka ayay ku dhacaysay taana shuruuc guud oo ay federaalku dejiyeen buu ahaa arrintii markii xajkii la waayay lacagtii in la celiyo ay noqotay golaha federaalka wuxuu arrimaha islaamka wuxuu yiri lacagtii waxaan ku shubnay Sacuudiga oo ahayd in lagu xajiyo mana aynan soo noqonin marka xilligay taasi soo noqoto ayaan bixinaynaa lacagta ruuxii doonaya lacagtiisa inuu sanadka dambe ku xajiyana waraaq cadayna ayaa siinaynaa si uu sanadka dambe ugu xajiyo marka qaar dadka marka lacagtii way u soo shubeen qaarna waxay siiyeen waraaqii cadaynta ahaa sanadka dambe inay ku xajiyaan qaarna warqadna lama siinin lacagna mayna soo dhicin arrintaasi sida iyadoo ah
xajkii dambe markay sida noqotay dee cudurkan kootiga uu dadkii ummadii saameeyey oo lagu xaj waayey waxa dibadaha ka xajiya la waayey ayaan anagu waxaan qaadnay markaa olole aad u xoog badan oo fara badan oo waraaqo badan oo ilaa 5 warqadood oo kala duwan ah marar badan oo lagu ugu tagnay alayta xaal ma aynan suura gelin dadkii lacagta in loo soo celiyo dadaal badan baan anagu ku bixinay runtii deegaan ahaan Sheekh Ahmed waxay leeyihiin dadka cabanaya nala soo xiriiray waxay leeyihiin lacagta in aynu shubno waxaan marka hore ku shubnay awaamiir ka soo baxday golaha sare arrimaha islaamka ee deegaanka Soomaalida oo adigu madaxad ka tahay lacagtina marka way naga maqan tahay iyaga ahayd marka inay lacagtii daba galaan inoo soo celiyaan marka xafiiska xaqiina macni gaabis oo kama muuqato dhinacana waa run awaamiir aan anagu bixinay iyo lacagta ku shubeen shacabku runtood weeye laakiin systemkii yiileban anagu sharaxnay oo ahaa in go'aankaas oo uu qaatay xafiiska golaha arrimaha islaamka ee federaalku ay noqotayna akoonkooda lacagta in lagu shubo aynan suurna gasheen ruux aan akoonka lacagta ku shubin inuunan xajiyeynin aan xaqiijinay baan shacabka u sheegnay horta marka koobaad akoonkaas inay lacagta ku shubaan oo waa runtood shacabka awaamirta anaga bixinay anagoo ku bixinayna awaamirtii federaalka iyo systemkii wax loo dhigay hadday noqoto lacagta in la soo celiyo runtii de meesha dagaal ma yaalo laakiin waxaa yaala codsi iyo waraaqa qor iyo juhdi iyo dadaal in lagu bixiyo tiina run ahaantii waanu ku bixinay aad baan ooga hadalnay waan u safaray marar badan baan iskaga daba noqonay waraaqa badan baan u qoray waraaq kastoo iyaga u qoraynana si dawladdu noola ogaato xafiiska xukuumadda deegaanka Soomaalida og ayaan siinay warqada waxaas oo dhani markay shaqayn waayeen ayaa waxaan sameynay in xafiiska